حسن شيخ مركو لها سوماليلاند ونبض سوماليلاند سول سنة عينكم مدرية oo inay khaatimo state type waa aqoonsan yahay waa aqoonsadeen Soomaaliland ahayn iyo aqoonsaday marka Soomaaliland waa nabad iyo laascaana Soomaaliland ay isma keenayso marka ma burciyo marka hadaan qiil u sameeyno waa burciyo Hargeysa iyo Booramo waliba Booramo lafteeda inay go'ayso agtahay hadaan qiil u sameeyno yani qof caafimaad qaba waxa kuma hadli karo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ وضيال كسر هذا برنامج حق ورن قضب كان وحنا كويرينا مقالة اللاسعانود يا طبعا حالة يقدم بي مقالة اللاسعانود وحلا الشيء يا إن عندما هر ل ولقوا حوتشنا يا عندما حق الدرر طبعا جهات كبرجر عندما سوماليلاند إن تبى برا هر لقوا فريا بيش في قشيني وكم ذا بيلها الدقيقة قبل كسول يا شلي طبعا صدر عدم هور لكواس وحوجين دون عدم الدفاع SSC بس لكن ورك يحققان هلنا أيها الشيء طبعا إن لوضع أبابل أما قرشة عدم هور للقطة برا يكواس طبعا لقدر دون عدم هذا يجو مركز على دعالم عدم هذا سوماليلاند دي بحرينته قبل SSC عبد الرحمن محمد أفقاده أيها قرب كيف فردي برنامج كان أنت بدنا نسولف فلانقينا عبد الرحمن بالسودو لاسعان حالة حقي مريسا maxaa u dambeeyay ciidamadan beesha fiqishin iyo sidoo kale ciidamada la sheegay in beelaha laga soo ururiyay iyaga lafta xagu wax maraya bismillaahir rahmaanir rahiim waxa jira update-ka guud laascaan maanta waa nabad doqayna kama jiraan dagaal kama socdo kadib 3 bari oo dagaal kulul oo faraha laga gubtay oo ka dhacay aanan dhul badan la kala qabsanin oo ka dhacay madaxda Soomaaliland iyagana dhankooda way joogeen ama wasiirka arrimaha gudaha ee ninka mulkiilaha dawladda lagu tilmaamo Maxamed Kaahin maalmihii dagaalku socday maalin kamid ah maalintiisa labaad ee dagaalka wuxuu ku sugnaa Goojacade ninkaas oo safar lug oo dheer ku tagay ninkaas oo inta uu dhumaalaysanaya ama warwareegaya gaari ay ka rumato askari ay kaga dhimatay oo gaari uu caadi u rogmaday askari taleeg ba ka dhimantay inay rogin dhimashiya dhaawac waa la sheegay tiradooda oo rasmi ah ma hayno laakiin gaari baa ka rogmaday kolonyadii isaga galbinaysa wuxuu ku tagay karay dhowr saac oo laamidu mari karay laakiin ma uuna marin laamiye dhulka oo qarfaha ah iyo qardajeexayay طبعا وانين aad u naf jecel sida aan dareemayo ninka intaas oo dhan meesha uu ku socdo waxaynay sababta uu tagayna waxay ahayd beeshiisa ciidamadii ka joogay Goojacade jamhuuriyadda lafteeda ciidan military oo kala amar qaadamoodeen waa beelal isku dardarsaday beeshiisa ciidamadii ka joogay in baayar isku dhacay oo marka iyagu xalinay inta markii laga yimaado dhanka kale jamaahiirtu maanta waxay wadaan ama toddobaadkan ba abaabul aad u fara badan kolkii hore alla way dagaalka galay ololihii ahaa bilowday waxa lagu qoray beel kasta ciidankii lagu qoray waa ay keentay ciidankuna la keenaana wuxuu wataa gaadiidkiisii iyo hubkiisii iyo wixii soo qalabeynaya hatta kama hadhayso oo sahnad ahaan kama hadhayso oo meel bay ku ogaanaysaa ciidankaasi inta uu wadanka ama shaqadii loogu talagalay uu ka qabanayo beesha ma dhibaan oo ugu yar ciidan bay soo bandhigtay dagaalka sidoo u galayay iyo qoryaha uu watay iyo aba yaraade waxay sameeyay horaantii horaan ka wada haatan waxa mar labaad la bilaabay heerkii labaad laba kaclaynta dagaalka ama qabashada xirada Goojacade oo aan aaminsanahay hadii Goojacade la qabto inay dhamaan gobolada Sool Sanaag iyo Caynba ay xoroobayaan Goojacade qabashadii la hayay ee hadda dagaalku uu ka socday waxa uu u baahday ciidankan hor fadhiya ka badan waxa lagu qoray ciidamadii beelihii ciidamada keenay dhamaan inay wada keenaan ciidanku sidii hore loo keenay markuu Goojacade qaban waayay lama beerinin inuu wax iska dhimay mooyaan waliba ciidamada hadda mesela khilaafka Aranjani iyo Deni u dhaxeeya Puntland u dhaxeeya ciidamo badan buu galaaftay oo beela fara badan oo laga saaray dagaalka ka baxay oo laga saaray inta markii laga yimaado dib ba haddana abaabul labaad oo soofaysi ah ba dib la isugu laba qoray waxaana beel kasta lagu qoray ciidankeedii beesha fiqishini marka ciidan ku lagu qoray mise ciidan iyo hubkii iyo in macnaha soo qalay askariga la hubkiisa ciidan lama keenayo kaliya ciidan dagaalamo oo dagaalka hore ka sii gala oo gaadiidkiisii tiknikadiisii wabiyihiisii wixii wata yaa la keenaya beel walba keenaysa waxa inta dheer
beesha jaamacsiyaad oo yani dabcan degan jidka halbowlaha ama doonta oo wax u maro goojacde dhaawaca iyo maxaan ku dhahay meydkana laga bixiyo technicada iyo saadka iyo gurmadkuna uu maro iyaga laftooda ciidankii ugu badnaa baa lagu qoray ma si kala weydiinin ila wareedka halkaas inoo joogay inay ciidankaas uu meeshiisa difaaca ka xidhanayo jidka uu goynayo iyo inuu difaaca soo galayo ma aanan si kala weydiinin laakiin laftooda waa lagu qoro ciidanka ugu faraha badan baa lagu qoray beel kasta marka sidii ciidankii hore ay u keentay inay ciidan ka badan u keento yaa hadda diyaar garowgu yahay dhanka kale Soomaaliland lafteedu gurmad badan bay geysay ciidamo badan bay ku daadguraysay kuwii maalinta dhaweyd Muuse Biixi tababarka u xiriyay baa tagay wax alla wixii awood ay haysay isugu dambeysay bay soo geysay aniga boorama wixii ciidan ka joogay xagaas ay isugu geysay Soomaaliland oo iyada lafteedu waa de maadaama oo waanwaantii iyo nabadayntii iyo hadalku dhamayntii wixii oo dhan u baxay hadde bal intaad un qori ku haysan karta baraka malay gaadhay qorigaaga ku hayso yay tahay marka tan hadda waa gunaanadkii ugu dambeeyay ee lagu kala baxayay in goojacada uu qabto dhulbaanta qabsado iyo in maxaan ku dhahay Soomaaliland ay wali ka sii taliso mahad xambaashi oo meesha wakiil uga ahaado labada dhanba marka diyaar garowgii ugu dambeeyay oo aad moodo xilligii dagaalku bilaabanayay oo kale yaa la waxaysmayay odayaashii Muqdisho ka yimid dabcan ma aysan warbixinin oo warbaahinta ma ayna waxba la wadaagin shacabka reer Laascaanoona inay si hoos ula wadaageen mooyaan iyadana ma ayna waxba la wadaagin laakiin Muqdisho iyo waxay ka soo heleen hadda ma dagaalka galadan iyo natiijada noo noqday hubka la urursanayo ma wax kale hoos ha jiray masaanada iyo deeq iyo dhaqaalaha lagu soo caawiyay Cabdiraxmaan adiyaan halka Muqdisho inuu bal ku yar istaagno Xasan Sheekh oo maalinkii ugu dambeeyay ciidana hadlaya dabcan ma ciidayana dhaheena afan xuski June 63 guurida ka soo wareegtay munaasabada ka hadlayay Soomaaliland waa nabad buu sheegay oo dabcan hadalkiisa dadku inta badan uga falcelinayeen inuu iska indhatirayo dhibaatada ka taagan sool iyo duulaanka iyo xaqdarrada ka socota odayaashuna isfaham baa ka soo dhashay baa la leeyahay walow aysan aad u faahfaahin qodobada lagu soo heshiiyay waxay isdhahan luqad siyaasadeed baa ku jirta meesha dawladda federaalka Soomaaliland bay la safan tahay xagee wax iska dhamarsan Xasan Sheekh markuu leeyahay Soomaaliland waa nabad Soomaaliland sool sanaag cayn kuma darayo oo inay khaatimo state tahay waa aqoonsan yahay waa aqoonsaday in Soomaaliland ahayn iyo aqoonsaday marka Soomaaliland waa nabad iyo laascaana Soomaaliland ay isma keenayso Soomaaliland marka ma burciyo marka hadaan qiil u sameeyno waa burciyo Hargeysa iyo Booramo waliba Booramo lafteeda inay go'ayso waqtahay hadaan qiil u sameeyno yani qof caafimaad qaba waxa kuma hadli karo hadii Soomaaliland uu aqoonsan yahay inay sool sanaag yahay tahay odayaashan muuna la kulmeen mana inay isfahmeen hadii odayaashii ay isfahmeen oo wada hadleen odayaashii waliba ay u mahad celiyeen waxa ka dhigan tahay wuxuu aqoonsaday Khaatume State gobol ka madax banaan ee Soomaaliland oo maamul goboleeda oo Puntland la mid ah oo dhibab uuni ka jiraan sida ay Hiiraan uga jiraan yani Jubbaland uga jiraan maxaan ku dhahay Galmudug uga jiraan dagaal way socdaan marka wuxuu aqoonsaday maamul goboleed Soomaaliyeed kamid ah oo dhibabkan uu gobolada kale ka jiro kale ay ka jiraan Soomaaliland iyo Puntland waagay isdagaali jireen oo kale inuu arkaan u maleeyay hadee ma dhici karo isagoo madaxweyne Soomaaliyeed sheeganaya ummadan inay calankii buluuga ah inay hesho u dagaalanta sheeganaya ma uu dhihi karo isagoo aqoonsan inay Soomaaliland tahay ma uu dhihi karo xabad ama Soomaaliland waa nabad Soomaaliland wuu bogaadiyay wuxuu yiri hormar iyo nabad iyo dimuqraadiyad baad gaadheen waxaad hesheen wixii aad kaliin qabsan karteen waad qabsateen laakiin wixii aad Soomaaliland la qabsan lahaydeen baa idin ka maqan marka wuxuu sheegaa bula hadlayaa burciyo barbariya Hargeysa bula hadlayaa waan malaynayaa hadii laakiin laascaanood ay ku jirto dambiye dagaal ku jira Muuse Biixi Soomaaliland dambiye dagaal ku jirtaa dulmi bay ku jirtaa duulaan dad walaaladooda ay ku jirtaa barakicin iyo qaxin bay ku jirtaa yani wax la isku xisaabtami doono oo Soomaali ayna isku sameeynin ee ku sameeyaan dad masaakiin ah dhulkoodii degan oo ay iyagu ka maamulahaan ay ku duuleen inta markii laga yimaado hadii uu isku darayo laascaanood iyo maxaa ku dhahay Hargeysa wuxuu dhihi Soomaaliland dagaalada ha joojiso kan ha joojiso waa sidii maxaa ku dhahay dadka caafimaad qaba hadii laakiin uu ku darayo Soomaaliland hadii afkii Muuse Biixi uu ku hadlay afkii madaxweyne Soomaaliya muunan ku hadlin hadii uu aaminsan yahay in sool sanaag iyo cayn ay Soomaaliland yihiin
muuse biixi baaba dhaamay oo waa lanagu soo duulay qiranayo dhibaatada qiranayo in lagu soo duulay sheegayay oo waa lanagu soo duulay isagu laakiin wuxuu yiri horumar iyo nabad baa meesha ka jirta marka labada eray isma kale keenayso waa inuu khaatumo u heelinayo oo uu leeyahay yani khaatumo inuu ka heelinayo labada mid bay noqonaysaa mid walbana waxay ka soo bixi doontaa ficilkiisa soo socday ka soo dhex bixi doontaa aad baad mahadsantahay kaasi waxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Afagaadho oo barnaamijka dabcan ila falanqeynayay qodobkan ku eegaynay magaalada Laascaanood iyo guud ahaan SSC xaaladeeda si guud iyo ciidamada sheegaya in si weyn loo dib u dhis loogu sameeyo ama si weyn loogu xoojinayo ciidamada difaaca ku jira kuwaas oo beelaha laga soo ururinayo beesha fiqashini ayaa iyadu hadaba kamid ah beelaha mar horeba soo xaadiriyay ama keenay ciidamada ay ku xoojinayaan ciidamada SSC dabcan barnaamijka ugu horeeya daawaneyseen aniga oo Muxudiin Xaraga ah iyo Cabdiraxmaan Afagaadho oo si wada jira barnaamijka inta badan idin la soo socodsiiya ayaa dabcan qodobkan idin waramayay inta barnaamijka ka xiga ku kulmayna waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo soo dhawaada saaxiibayaal